aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay. Sawirkan ayaa lagu sheegay inuu yahay sawir dhanka satellite-ka ah, wuxuu muujinayaa burbur ka soo gaaray dhismaha hogaamiyaha dowladda Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dhismihiisa bilowgii goobaha la bartilmaameedsaday ayuu ka mid ahaa. Mas'uuliyiinta Iran si cad ay u sheegeen in goobta uu joogin oo duleedka magaalada Tehran la geeyay, laakiin duleedka oo kaliya ama meel Iran ka baxsan ayaa lagu tilmaamay si rasmi ah, goobta looma sheegin. Mas'uuliyiinta dowladda Iran warbaahinta ay la hadleen waxay yiraahdeen duqeynteena ama gantaaladeena kaliya kuma ekaan doonaan saldhigyada Mareykanka, waxaan bartilmaameysan doonaa goob kasta, waxaana diyaarinay bay yiraahdeen liis dheer oo weeraro ah oo aan doonayno inaan ku garaacno ama aan ku qaadno magaalooyinka Israa'iil, gaar ahaan goobaha muhiimka inoo ah ee aan bartilmaameysanayno. Sidaas waxaa lagu yiri qoraal mas'uuliyiinta dowladda Iran ay soo saareen sida telefishinka Al Jazeera uu baahinayo. Iran waa berigii maanta markii la bartilmaameysaday waxa ay garaacday saldhigyo iyo xarumo muhiim ah oo ku yaala khaliijka. Gantaalada Iran waxay gaareen Imaaraadka Carabta, Israa'iil, Qatar, Kuwait, Bahrain iyo sidoo kale boqortooyada Sacuudiga. Dowladaha Carabta qoraal ay soo saareen oo ay ku cambaareynayaan madax banaanida dowladahan oo lagu xadgudbay iyo gantaalada Iran oo gaaray saldhigyada Mareykanka ee gobolka. Diyaaradaha droniska ee Iran ayaa xitaa la arkayay oo ku dhacay saldhigga Mareykanka oo ku leeyahay gudaha dalka Bahrain. Sidaasi oo kaleetana Israa'iil waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo guud ahaan la geliyay dadka Israa'iiliyiinta, xarumihii waxbarashada, caafimaadka, goobihii shaqada dhammaan waa la xiray, iyadoo maantaba iska ahayd maalin fasax ah marka la eego maalmaha caadiga ah. Duulimaadyo aan caadi ahayn ayaa la diiwaangelinayaa oo ka dhaqaaqaya gudaha Israa'iil, si gaar ahaaneed saldhigga la yiraahdo Nevatim. Sidoo kaleeto waxaa la sheegay garoon diyaaradeedka Ben Gurion duulimaadyadii ugu badnaa ama diyaaradihii ugu badnaa inay ka duuleen saacadihii lasoo dhaafay. Waan eegi doonaa macluumaadka halkaasi kasoo kordhayo, laakiin aan kula wadaago warbixinada ay soo saareen Israa'iil iyo Mareykanka ee hordhaca iyo dagaalka markii uu bilowday. Israa'iil afhayeen ciidanka u hadlay oo Evi Dawal la yiraahdo waxa uu ku dhawaaqay 10 diyaaradood oo dagaal oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin, gaar ahaan kuwa cirka, inay duqeynta iyagoo ay bilaabeen iyagoo bartilmaameysaday sida uu sheegay bartilmaameedyo muhiim ah sida goobo military, saldhigyo gantaalada laga soo ridayay, xarumo talis iyo sidoo kale baro control, sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ciidanka Israa'iil. Afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay in qatar toos ah oo Israa'iil soo wajahayso marnaba aysan doonayn inay arkaan, isagoo intaasi ku daray in ciidanka Israa'iil bilihii lasoo dhaafay inay la socdeen qorshayaal weerar oo xukuumadda Tehran ay hormarinaysay, isla markaana ay sii waday barnaamijkeeda nuclear-ka. Waxa uu intaasi ku daray Israa'iil inay sameysay dhoolatus military iyo sidoo kale tababar dhanka difaaca iyo weerarka oo ay la fulinayso xulufadeeda. Waxaa jiray digniino loo diray dadka shacabka ah oo Israa'iiliyiinta, waxaana loogu baaqay inaysan ka soo bixin dhismayaashooda iyo goobaha loo diyaariyay, iyadoo heegan la geliyay dhammaan adeegyada caafimaadka. Sidoo kale waxaa dadka la sheegay in looga baaqay in ay ka fogaadaan goobaha dadweynaha ay isugu yimaadaan si aysan waxyeello u soo gaarin. Ilaalada kacaanka ee dowladda Iran haddii aan eegno waxay guul ka sheegteen ilaa iminka dagaalka socda. Waxay sheegeen in qoraal ilaalada ka soo baxay inay bartilmaameysadeen nidaamka digniinta hore bixinaya ee dowladda Mareykanka, oo ay sheegeen inay gantaalo ku garaaceen nidaamkaas oo ay sheegeen in uu ka fogaa dalka Iran, waxaana la sheegay inuu yaalay gudaha dalka Qatar. Macnaha duqeyntii Qatar waxay yiraahdeen nidaamka digniinta hore bixiya ayaan ku bartilmaameysanay waana lagu burburiyay sida lagu sheegay qoraalka. Nidaamkan ayaa waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah kuwa qaaska ah ama qalabka dhif iyo naadirka ah ee Mareykanka uu haysto, kuwaas oo lagu talagalay inay la socdaan gantaalada balaastiga. Mana jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Mareykanka oo arrintan looga hadlay. Sidoo kale Iran wax war ah kama soo saarin xogaha ama macluumaadka Israa'iil ay baahisay guulaha ilaa iminka. Warar soo baxay ayaa sheegaya in weerar culus ay Iran ku beegsatay saldhigga Gilat la yiraahdo oo la rumaysan yahay inuu ka tirsan yahay goobaha ay leedahay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, kuna yaala Herzliya ee agagaarka Tel Aviv. Iran waxay sii wadaa duqeymaha aan kala joogsiga lahayn oo ay Carabtu si xoogan ugu wajahaysay saacadihii lasoo dhaafay. Dhanka kale, muuqaalo ay baahisay warbaahinta Iran ayaa muujinaya weeraro gantaalo iyo duqeyno culus ah oo ay fuliyeen ciidamada Iran, kuwaas oo ka mid ah howlgalka ay ugu magac dareen ballanqaadka afraad. Muuqaalada ayaa muujinaya ridista gantaalo, qaraxyo waaweyn iyo bartilmaameedyo la beegsanayo, iyadoo oo howlgalkan lagu tilmaamay jawaab military oo si ballaaran loo qorsheeyay kuna wajahan Israa'iil iyo danaha ee xulafada Mareykanka ah. Wararka kale ee soo baxay waxay sheegayaan suuqyada Carabta inay shacabka ku yaaceen biyaha iyo sidoo kale waxyaabaha aasaasiga ah
haddii xaaladdu ay sii adkaatana si aan guryaha looga soo bixin saacadaha soo socda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi wuxuu sheegay in madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian iyo hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ay nool yihiin, isagoo beeniyey warar saacadihii lasoo dhaafay lagu baahinayey baraha bulshada oo sheegayey in markaasi la khaarijiyey. Israel waxay wajahaysaa weeraradii ugu ballaarnaa marka laga soo tago kii 7 Oktoobar, waxaana dadka rayidka ah ilaa mas'uuliyiinta Tel Aviv ay isku wedaarsanayaan ama ay gelayaanba dhulka hoostiisa. Wakaaladda Iran ee Tasnim oo soo xiganaysa ilo militari oo Iraani ah ayaa sheegtay in ilaa hadda la beegsaday 14 saldhig oo militari oo Maraykan ah oo ku yaala gobolka. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa u sheegay NBC oo yiri Iran inay haysato awood iyo aragti ku filan si ay u sii wado dagaalka inta baahida ay jirto. Waa sida uu sheegay Abbas Araghchi. Abbas Araghchi wuxuu u muuqdaa daqiiqadihii lasoo dhaafay inuu warbaahinta la hadlayay, taas oo micnaheeda ay tahay in uu leeyahay weli dagaalka waan ku jirnaa, dhanka kaleetana waan hadli karnaa oo warbaahinta waan oga warami karnaa xaaladda. Marka si uu xaaladda oga dhigo mid caadi ah oo Iran dhibaatooyin badan aanay la kulmayn, ayuu haddana dhinaca kaleeto la hadlayaa warbaahinta. Wixii soo kordhana waan idinla wadaagi doonaa. Dhinaca kaleeto waxyaabaha la diiwaangeliyey waxaa ka mid ah xarun ay dhiganayeen gabdho badan oo iskuul ahaa inay Israel gantaal ku garaacday, dhimashadana 40 ay kor u dhaaftay. Sidoo kaleeto waxaa la diiwaangelinayaa dhaqdhaqaaq duulimaad oo aanan caadi ahayn. Hadda waxaa la sheegay telefoonka inay ku wada hadleen amiirka dowladda Qatar iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, waxaana la sheegay inay ka wada hadleen isbeddel ka socdo iyo sidii ay dowladahan dadaal u bixin lahaayeen, maadaama waxoogaa hadda Iran ay aad ugu dhow yihiin. Iranna saacado badan sidii loogu soo gabagabeyn lahaa ayaa laga fekerayaa. Dhanka dhaqdhaqaaqa duulimaadyada Israel haddii aynu fiirino, nidaamka caalamiga ah Flight Radar loo yiraahdo oo duulimaadyada caalamiga ah lagala socdo ayaa muujinaya in hawada Tel Aviv iyo Tehran ay gebi ahaanba haawanayso, iyadoo duulimaadyadu ay aad u tiro badan ay ka dhaqaaqeen garoon diyaaradeedka Ben Gurion la yiraahdo. Sida la sheegay, diyaaradda madaxda Israel ay isticmaalaan ayaa ka duushay gudaha magaalada Tel Aviv. Cidda saaran lama sheegin, halkay u socotana lama sheegin. Waxaa kale oo la diiwaangeliyey 14 duulimaad oo degdeg ah tani waa berigii maanta, oo ah kuwa aan horey looga baran. 7 diyaaradood oo ka mid ah 14kaasi duulimaad waxaa la sheegay inay samaysay shirkadda Airleil oo diyaaradaheeda oo keliya ay ka dhaqaaqeen garoon diyaaradeedka Ben Gurion. Sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaadka ah in sekanaba ay u dhexeeyeen duulimaadyada oo mar qura ay ka wada dhaqaaqeen magaalada Tel Aviv. Diblomaasiyiinta ayaa baxaya mise madaxda horey sidan oo kale diyaaradda madaxda ee Israel inta badan ay adeegsadaan ayaa ka dhaqaaqday garoon diyaaradeed ku yaala magaalada Tel Aviv, waxaana la diiwaangeliyey inay tagtay jasiirad ku taala dalka Giriiga. Hadda lama sheegin halka diyaaradahan ay ku wajahan yihiin, cidda saaran iyo sidoo kaleeto sababta ka dambeysa dhaqdhaqaaqan aan caadiga ahayn ee degdega ah. Dhanka kale haddii aynu eegno, waxaad moodaa maalmahanba in xiisad gobolka oo dhan ay ka jirto. Waa tii Afghanistan iyo Pakistan ay dagaalamayeen, iyadoo xal loo raadinayo hadda Iran ayaa sheekada ku soo biirtay. Dagaalkana waa uu socdaa. Iranna waxay ku hanjabayaan in ay bartilmaamaysan doonaan xarumo kale oo muhiim ah gudaha Israel oo keliyahna waxay yidhaahdeen waxaan u diyaarinayba gantaallo iyo inaan beegsanno goobo cayiman. Haddii aynu fiirino macluumaadka soo baxaya, waxay tilmaamayaan in Israel maalmihii ugu dambeeyey ay diyaarado geysay gudaha Somaliland, inkasta oo mas'uuliyiinta Somaliland ay waxoogaa ka yargaabsadeen macluumaadka arrintan ku saabsan in laga helo. Haddana waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in Somaliland la geeyey diyaarado. Israel ayaa lagu waramaya inay halkaasi geysay. Ujeedada ugu weyn ay ka dambeyn kartana waxay tahay haddii Xuutiyiinta ay beegsadaan maraakiibta ganacsi iyo kuwa shidaalka iyo kuwa Maraykanka ee Baabul Mandab iyo agaarkeeda ku sugan, in Israel halkan iyadana ay ka jawaabto oo si toos ah loo bartilmaameedsado Xuutiyiinta dalka Yemen. Wararkii wanaagsan.